waxaan doonayaa inaan muuqaalkan oga hadlayay mise aan fariin ugu dira dhalinyarada dalabatul cilmiga ah. waxaa jira dad annaga oo kale ah bas lagu soo shubtay fikir kale oo doonaya inay maalin walba nagu horcayaan ay nagu hor xigtaan saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam. saxaabadu waxa weeyaan waa dadkii iyo duulkii garab istaagay nabiga sallallahu alayhi wasallam, waa dadkii maalkooda iyo naftoodaba u bixiyay inay kalimatullaahi al-ulya noqoto weeyaan. waxa weeyaan dad iyo duul oo rabbi subhanahu wa ta'ala ka raali noqday weeyaan. in badan waxaynu quraanka ku arkinaa radiyallahu anhum radu anhu, in badan waxaynu quraanka ku arkinaa ayagoo lagu amaanayo ayaynu in badan quraanka ku arkinaa iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam. al-imam at-tahawi wuxuu yidhi waxaynu jecelnahay saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam qof kamid ana jecelka ku gooniyeen mayno, mid ayaga kamid ana bari ka noqon mayno. jecelkooda in la jeclaado waa diin iyo iimaan iyo ihsaan, in loo caroodana waxa weeyaan waa kufri iyo nifaaqnimo iyo tuqyaan weeyaan. hadaa aragtid qof u caroonaya saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam qayb lacnadaya, waxaad ogaataa inuu yahay qof uu ku jidaay kufri iyo nifaaqnimo ay ku jiday inuu yahay. waa in dadka dalabatul cilmiga ay baraarugaan ee dadka noocaas oo kale ee la isticmaala social media inay ka qabtaan dadka caamada, inay ka difaacaan cirdiga saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaynu jecelnahay saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam, allah ka raali noqday. waxaynu caroonina qofkii oo caroodo, waxaynu bari ka noqonina qofkii bari ka noqdo. marna ma aqbali doono mana yeeli doono intaynu noolnahay in asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam mid maan gaab ay liito wax ka sheegay.